gudoomiyaha guddiga tacliinta sare ee Somaliland Saleebaan Dirir Cabdi oo qaar ka mid ah warfidiyeenka kula hadlay xafiiskiisa ayaa sharaxaad dheeraad ka siiyay shahaadooyinka ay sitaan musharaxiinta golaha deegaanka ee muddooyinkii u dambeeyay xafiiskaasi laga xaadirinayay. annagu haddaanu komishanka tacliinta sare nahay waxa takhasuskayaga gaarka ah ee aanu ku focus garaysnay oo ahaa inaanu 6 gobol ee waaweynaa deegaanadooda oo local government-ka ah iyo Gebili 6+1 ka inaanu si gaar ah shahaadadahooda aanu u hubino aanu dabagalno aanu tasdiiqino. hase yeeshee waxa nagu soo baxay col badan oo kale oo baarlamaanka u sharaxan ba iyaguna jaamacada keenay. jaamacadahaasi markii hore waxaanu anagu aad u doonaynay inaanu inta ku takhasusno laakiin markay jaamacado noqdeen waxay nagu noqotay inaanu arimahana aanu gallo. shaqadaasi shaqo culus bay ahayd. 3 category baanu u kala qaadnay 425 yani musharax ayaa dunida nooga yimi 425 jaamacadaha la baaray 46 jaamacadood bay ahaayeen oo u kala qaybsan jaamacadaha gudaha oo 8 jaamacadihii Soomaaliya ee burburka iyo waqtigiisa jaamacadaha dibaddu iyo jaamacadaha guduhu 8 waa jaamacadaha gudaha idinka raaliya 35 baa dibadda ah. dunida meel aanay shahaadado ka keenin musharaxiintaasi ma jirin. 425 kaas waxaanu u kala qaadnay yani runtii inta aanu magaranaysaa tasdiiqinay oo dhowr iyo 40 mooye inta kale waa tasdiiqinay. culays badan baa arrinkaasi uu nagu ahaa. muddada aynu haysanayna gebigeedaba waxaanu bilownay wiigii u dambeeyay February ilaa March 3 wiig waad garan karaysaan 425 jaamacadood ama musharax ayaanu magaranaysaa baadhaynay. waxaasina waxay markii dambe naga soo furqeen 7 degmo la isla dhaafiyo qof ka soo jaamacad sita ayaa noo imanayay. horta baaritaanku pressure-ka iyo waxaas buu ahaa wax weeye dhaqan baa iska jira ciliiriya. qofkii shahaadada sitay ama noo keenay ayaa wuxuu wataa 7 anigu hoggaan dhaqameedkii baan ahay, anigu waxaan wadaadkii baan ahay, anigu waxaan ahay magaranaysaa maartay malaaqolada wariyaashaana kulli wax waa kaga jireen. suxufigii reerkaan ahay magaranaysaa maartay wax waliba de waa naga soo mareen laakiin waxaanu ku ekaanaynay who is who system baan adeegsanaynay. gudoomiyuhu waxa uu xafiiskiisa ka leexiyay in xukuumaddu ay dabarka ka taabatay taabadarkeeda waxa uu farta ku fiiqay cidda uu arintaasi culaysiyay kaga imaadeen. su'aasha markaanu si faraanka uga jawaabno oo saadixiya cadaadis meelo uu nagaga yimi waa jirtay laakiin dawladda sare cadaadis nagama iman. waynaanu idin cadayno tuhmadu way iska jiraan marka hadhowto qofka la ogolaan waayo ama la tasdiiqi waayo ee uu suuqa qabto waxyaalo kale uu magaranaysa maraysa ku mara awaalaya. tusaale haddaan idin soo qaado yani cidda aanu xiriirka leenahay isugu dhaweyn waxa kamid ah wasiirka waxbarashada iyo sayniska. waxa laga yaabaa inuu yani uu daneynayay de musharaxiinta qaarkood mar qura noomana iman shaqooyin waa noogu imanayay nagalamana hadal. يعني وزيرada kale iyo wixii ka sareeyana de hadalkoodaba da saraakiil de kulli meelaha ordaysa qoliyaha noogu socodka badnaa waxay ahaayeen markaanu gaargaar u xusno qolada baarlamaanka ama dawladaha hoose ha ahaadeen ama baarlamaanka ha ahaadeen. nin waliba markuu albaabka ka soo galo wuxuu oranayay xasaanad baan leeyahay ee waa in dadka inta kale laga horeysiya. challenge-ga waanu arkaynay. hoggaan dhaqameedyada ayaa iyana candidate-kii aanu aad isugu oo de hoggaan dhaqameedyaduna meesha waa marayay. markaanu nidhaahno ninkan musharaxa ama gabadhan musharaxadii jaamacad bay ka baxday yani iyada kalsoonida leh shahaadada leh isukaaya daaye odayaasha aad noogamay garowsaneen ee waxay lahaayeen de waanu wadanaa
marka taasina challenge kale ayay nagu ahayd laakiin cidhiidhiga iyo halkii qoladiina dee miidiyuhu aad ma garanaysaa ka taabateen cidhiidhi halkaa nagaga yimi weliba labaanu caddaynaynaa dowladda qura ma ahayn xisbul xaakimka oo isna ma garanaysaa haddii aynu soo gaadhayso danahoodu horta aad iyo aad baanu u hambalyaynaynaa saddexda xisbiba yacni waa qolyaha noogu bresharka yaraa ama kamaba aanu argxiis yacni saddexda xisbiba waa qolyaha yacni professionally dhowrayey يعني ما قلنا سمرت candidates هذا حزب الحاكم كي نقول إنسان هي دولتنا حزب الحاكم كون عداد سنة مسارين gudoomiyaha oo warfidiyeenka qaarkood weydiiyeen bal waxa uu ku macnaynayo shahaadooyinka musharaxiinta qaarkood ay saxeen markii hore hase yeeshee markii dambe ay ku tilmaameen mid khalada waxa uu yiri hal case ba yani maartay dhacay bani aadamku to err is human ma garanaysaa maartay qalad wuu dhacaa warqad aanu tasdiiqnay ayaa waxa ka dambeysay warqad la leeyahay tasdiiqdaasi يعني ما قالنا سما هيك سنين أرنكانا سي بروفيشنال أو يعني ما قالنا سما يعني ده جد ده سريع أي كفر يستي بأنه حللني أرنكي مركا وحنو كل ما يني يعني وانو دوين مركا عدي أي حسيني سينا يعني وانو لحظة الله والله حديدني باتري كوسار محمود تلفيشك الصهن